aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta hortiina soo istaago anigoo ka turjumaya mawduuc ku saabsan masiirka ummadda galmudug. waxaad ogtihiin in la magacaabay guddigii doorashada iyo xallinta khilaafaadka, loona magacaabay inay u qumaan xil weyna iska saaraan arrinta loo egmaday oo arrin aad iyo aad u mugle ah. guddigaas in la magacaabo waxaa xaq u leh madaxda galmudug sida uu siinahayo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya qodobkiisa 120aad oo weliba caddaynaya arrinkaas sida ay xaq ugu leeyihiin hawl u gaara ay tahay maamul goboleedyada inay ayagu magacaawdaan guddiyadooda doorashada, maadaama ay yihiin dadkii ka soo jeeday maamul goboleedka la dhisayo. guddi walbayba uu ka soo jeedo, guddi walbayba uu u qumayo masiirka maamulka uu ka turjumayo. sidaas oo kaleeto dastuurka galmudug ayaa na siinaya inaan magacaabanno guddiga farsamada doorashada iyo xallinta khilaafaadka galmudug. sida ku cad qodobka 79aad faqradiisa 4aad xarafka C faqradiisa 5aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug. sidii wajkii aan xaqa u lahayn ayaan marnay. waxaan soo magacaabnay guddiga halka fadhiya oo indhihiinu ay hayaan ayaan soo magacaabnay. baarlamaanka ayaan u soo gudbinay haddii aan nahay xukuumaddii. anigoo afkii xukuumadda ku hadlaya, madaxii xukuumaddana ah, waxaan ka codsanayaa guddoonka baarlamaanka in ay ansixiyaan ama diidaan, hor bay u yihiin. aniga codsigaygu waxa weeye guddiga inaad ansixisaan si uu ugu guto hawsha loo egmaday. waxaana rajaynayaa in ay yihiin dad khibrad u leh hawsha loo doortay, lagana fakarayay waqti dheer, la soona gaarsiiyey meeshii ku habbooneed. waxaan mar labaad ku celinayaa codsigayga aan ka codsanayo guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka inay meel mariyaan guddiga si ay u gutaan hawshooda. shukran lakum wabillahi tawfiiq.